بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما تفيدوا بين وحكوا يجدونا sidee ku ogaan karaysaa wifi kugu jira mobilkaaga Samsung-ka oo ku install garaysan sidee passwordkiisa ku ogaan karaysaa insha Allah maanta ka hadli doonaa laba waxbaad u baahantahay marka shaqadan qabanayso in mobilkaaga waxa ugu muhiimsan oo ah root mobilkaaga root garaysan system rooted waxa la yiraahdo yahay iyo marka labaad waa application u baahantahay wifi password viewer inta haysato application-ka waad ku shaqayn karaysaa application-kuna ma shaqaynayo root la'aan marka isaga ogaataan weeyaan marka waxa u baahantahay application marka waad root garanaysa mobilkaaga marka waxa labaad u baahantahay in application-ka raadiso Google Play Store-ka waxaad ku qortaa xaggan hoosaan yaala wifi password viewer click markii uu ku saarayo application-ku wifi password viewer application-ka waa aragtaan goobada casaarantii iyo application-ka logadiisu magaciisana waa ka wifi password viewer ka dasheenta click tana installation-ka ku soo markuu ku install gareeyo installation-ka u dhameeyo open baad taaban doontaa haddana bisiyo markiiba soo saari doonaa waxyaabahayga data-da iigu jirtay wifi-gayga password-kayga waxyaabo yar badan soo saaraya marka video baan qaban doonaa waana masixi doonaa password-kii waxyaabo noocaas kadib bayaan insha Allah ku soo noqon doonaa application-ka face-kiisa ugu horeeya marka open u tiraahdo wuxuu ku soo tuuri doonaa wuxuu ku weydiin doonaa root mobilkaaga inuu root hadduu yahay allow buu ku oran doonaa ama deni dadna allow baad oran doontaa super hadduu yahay king root hadduu midahan kugu jiro allow baad oran doontaa waa systemka rootka xagaaso face-ka ugu horeysan ayuu kugu soo bixi doonaa haddana masaxay meelahan waayo ma doonin la arko password-ka iyo waxyaabaha igu jira inay faafaan marabo la arko laakiin san ma kugu soo baxay marka laba wifi baan igu jira oo ay shaqeeyaan isticmaala midka koowaad waxa weeyaan waa ka weeyaan midka koowaad ka sare oo aad aragtaan ka labaadna waa kan weeyaan ka koowaad waxa name waa magacii wireless-ka sula passwordkiisu bartaa soo dhigi doonaan kama saxayo ayaana masaxayada bartaa soo dhigi doonaa passwordkiisa xagga no security level-kiisa ka labaad waa wifi-gan hadda isticmaalayo dalba 4G passwordkiisana xagga soo dhigay ayaana hadda masaxay xagga kama saxay passwordka way ma doonin passwordkiisa la arko xaggan ka low security level weeyaan ay ka hadlaya marka waxa laga yaabaa in tiro bataan oo ay noqdaan 1 2 3 way tiro badan karaan inta wifi kugu jirta muhiimadu waxa weeye inay inta wifi kugu jirta passwordkooda soo saaraya taas waa hubaal inta kugu jirta passwordka soo saarida application-ka use-kiisu aad buu fududiyay face-kiisa orna aad buu fududiyay haddaad wifi tiro badan dadka wifi-yada inta badan isticmaalatay hadda ka dhex weydo wifi-ga u baahnayd xaggan search-ka orna sare calaamad casata sare intaas ku dhufanaysaa search inta yar bad ku dhufanaysaa xaggan kalena waa setting-giisa weeyaan setting-ka xaggan ka galaysaa xaggan application-ka magaciisa aad ka arkaysaa laakiin tan ku qaldamin tan ana isticmaalay aad bartaan balaas ku taala ana isticmaalay hadda oo qalinkana ku soo sawirayaan isticmaalaya marka waxaan rajeynayaa insha Allah inay si fiican u wada fahanteen insha Allah aad ka faa'iideysan doontaan aniga farxan xasan dalba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah waxaan jeclahay inaan casharada soo socdaan kaga hadli doono waxa laga dadkeen inta badan inaad tiraadaan waa maxay root sideen root gareeyo mobilkayga rootku muxuu yahay insha Allah casharada dambe ama fiidiyoyada dambe soo galiyo insha Allah ku sharaxi doonaa root wuxuu yahay iyo waxyaabo la xiriira insha Allah assalaamu calaykum